السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wuxuu ku dhashay Milton Hershey gudaha beer yar oo ku taal wilaayada Pennsylvania ee dalweynaha Mareykanka sanadkii 1857 markii ay kala tageen waalidiintiisa wuxuu hooyis ku noolaa wilaayada Lancaster. Milton ayaa isaga tagay waxbarashadiisa isagoo kuryar ah wuxuuna ku biiray bahda saxaafadda laakiin muddo yar dabadeed uu isaga tagay saxaafadii wuxuuna shaqaale ka noqday goob lagu sameeyo macmacaanka halkaas oo aad u jeclaatay naftiisa. muddo yar ayuu Milton ku bartay qaabab badan oo loo sameeyo macmacaanka taas oo aakhirkii keentay inuu Milton sameysto mashruuc asiga gaar ah isagana tago shaqaalnimada. Milton oo 19 sano jir ah ayaa xoogaa lacag ah soo amaahday kadibna wuxuu ka furtay magaalada Philadelphia ee wilaayada Pennsylvania shirkad yar oo soo saarto macmacaanka. 6 sano oo shaqo joogto ah uu ku jiray Milton haddana ma uusan helin wax faa'iido ah oo la sheegi karo taas oo ku qasabtay Milton inuu joojiyo shaqada. kadibna wuxuu aaday magaalada New York wuxuuna ugu sii gudbay magaalada Chicago. muddo yar kadibna wuxuu sii safray New Orleans wuxuuna baadigoobay waddo uu ku gaari karo riyadiisa. Milton ayaa soo helay furaha guushiisa taas oo ah in macmacaanka uu sameynayo ku daro caano firaash ah. Milton ayaa markii uu helay baadidiisa ku soo laabtay Pennsylvania wuxuuna ku dhaqaaqay sameynta macmacaan asigoo adeegsanaya caano firaash ah. Milton ayaa mashruuciisa cusub u helay maalgelin iyo taageero wuxuuna ugu magac daray macmacaanka ay soo saarto shirkadiisa Crystal Hershey waana xalwad kareen ah oo laga sameeyay caano firaash ah. macmacaanka cusub ay soo saarto shirkadiisa Lancaster Caramel Company ayaa helay suuq weyn oo dadweynihii ayaa aad u jeclaaday waxaana kamid ah dadka macmacaankaasi uu soo jiitay ganacsade Britain ah oo macmacaanka shirkadda suuqa ku daadiyay. Milton wuxuu helay lacag badan guul weyn oo uu gaaray oo 4 sano gudaheed ay shirkadiisa ku noqotay mid kamid ah shirkadaha ugu weyn dalka Mareykanka. Milton ayaa dareemay in dadweynaha jecel yihiin shukulaatada isla markaana aad u xiiseynayaan taas oo Milton ku riixday inuu iska iibiyo shirkadiisa wuxuuna ku gaday $1 milyan. dabadeed wuxuu soo iibsaday agabkii lagu sameyn lahaa shukulaatada isla markaana wuxuu aasaasay shirkad ku caan baxday shukulaatada ee lagu magacaabo Harris Chocolate Company wuxuuna ka dhisay dhismaha shirkadda gudaha beertiisa ku taal Pennsylvania ilaa ay noqotay shirkad kamid ah shirkadaha ugu weyn dalka Mareykanka. Milton ayaa ka helay faa'iido badan shirkadiisa cusub ee soo saarta shukulaatada taas oo u suuragelisay Milton sanadkii 1905 inuu aasaaso magaalo dhameystiran oo lagu magacaabo Hershey City. Milton ayaa magaaladiisa u dhisay qaab qurux badan wuxuuna u sameeyay iskuulo, isbitaallo, goobo badan oo loogu adeego bulshada sida xarumo lagu xanaaneeyo agoonta, hoteelo iyo meelo lagu damaashaado. sidaas daraadeed magaalada waxaa lagu tiriyaa mid kamid ah magaalooyinka ugu wanaagsan caalamka ee loo dalxiis tago. sidoo kale Milton ayaa sameeyay sanduuq loogu talagalay in lagu taageero dugsiyada farsamada. Milton ayaa ku dhintay da'da 88 sano wuxuuna geeriyooday sanadkii 1945 wuxuuna ka tagay warshado waaweyn iyo ummad leh farsamo horumarsan.